السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوتيوب فاميلي ولا ليال وايدن سلامي ولالكم بشير وإذن الله كسو دوادا كروين أكاديمي إن شاء الله تعالى فيديو كان آدي مهم وياهي وحا ربا إني إذن فايدة سيف عن كو فايدة وحا كهالي دونا ومسألة مرة بدن صولابت ووحا ديه كلا مسألة انت ugu badan lii weydiiyo forex trading حلال ميا مسوا حرام forex trading iyo diinteena islaamka muxuu ka qabaa forex trading insha Allah taala taas rabana ka hadlo sababta hadda uga hadlayo oo mar badan aan uga hadlin mas'aladan waxa waaye enough information man laakiin hadda waxa dhihi kara information ama macluumaad dhameystiran ayaa haya oo aan rabo inaan xataa idin la wadaago insha Allah taala macluumaadkaas videoyadaas insha Allah taala culimo badan ayaa ka hadashay forex trading ma xalaal ba ma xaraam ba waxaan rabaa inaan ku bilaabo videogan aan idiin sheego kuwa badan oo way jiraan dhahaya waa xaraam iyo kuwa badan oo jiro oo ay dhahayaan waa xalaal marka waa masalo muxuu dhexdhexaad masalo xaraanteeda iyo xalaasheeda aan cadeen aniga ma ihi caalim ma ihi scholar ma ihi laakiin insha Allah waxaan rabaa inaan isku dayo inaan idin fududeeyo sidii aad go'aan uga gaari lahaydeen waxaan ganacsi sii wadan karaa mise waa ganacsi iska daynay taas ayaa rabaa inay idin fududeeyo aniga xaraan ma idin kaga dhigay xalaal ma idin kaga dhigay because ma ihi ba caalim just nin waxa ahay forex trading ku jiray 6 sano forex trading si fiican u yaqaano laakiin diinteeda iyo muxuu caalim intaas rabaa inay la socodsiin insha Allah taala marka waa maxay waxa la isku haysto forex trading horta maxaa waay waxyaalaha lagu haysto waxa rabaa inaan ka hadlo pointska ugu waaweyn ee lagu haysto forex trading insha Allah taala markaas aan idin tusiyo ama idin la wadaago videoga culumada dhahayo waa xaraan then aan ka hadlo points kan iyo muxuu ma points valid ma points muxuu xaraan ka dhigaya mise waa wax caadi oo muxuu laga socon karo insha Allah taala marka mid ugu horeyso forex trading lagu haysto waxa waa leverage leverage ka oo aan idin sheegi doono waxay tahay marka waxa waa leverage iyo muxuu service ka ayna siinayaan dilaalka labadaas oo la isku daray waa leverage iyo adeega dilaalkeena taas waa mid ugu weyn ee forex trading lagu haysto taas waa number 1 midda labaad waa riba qardi waxa physical delivery ma jiro muxuu tusaale hadda markii aad dukaan aadid wax gadanaysid lacagta markaa u dhiibtid isla markiiba waxa aad gadanayso lagu dhiibaya marka forex trading waa online waxaas ma jiro taas waa tan ugu weyn ee labaad ee lagu haysto midda saddexaad points ka saddexaad ee lagu haysto waxa waxa loo yaqaan selling what you do not own marka iibinta waxa adiga aad iska lahayn waxa aysan gacanta adiga kugu jirin oo iibinaysa taasna waa midda saddexaad ee lagu haysto insha Allah taala marka waxaan ka hadli doonaa leverage muxuu yahay dan waxa sheegi doonaa sababta looga dhigay xaraam muxuu pointkan ugu horeeya leverage ka iyo adeega la isku darayo leverage iyo adeega dilaalkeena uu nasiinayo oo la isku darayo tan oo xaraan ka dhigas taas ayaa kala doona markuu leverage waa maxay taas rabaan idin sheeg insha Allah taala midda labaad pointka labaad waa ka hadli doonaa iyadoo waa riba qardi iyo midda ugu dambayso selling what you do not own marka insha Allah taala waxa idin leeyahay ka faa'iideysta muxuu adinka maxay idin la tahay commentiga ka soo dhiibta waa maxay sababaha isleedahay forex trading waa xaraan hadii aysan videos kale oo sheegaya waxyaalo kale ee ka baxsan waxaana videoan ku sheegay insha Allah sidoo kale ila wadaaga commentska hadii aad wax ka faa'iiday videogan ay ku fududeyso go'aanka gaaristaada forex trading ma sii wadaysaa mise iska daynaysaa insha Allah taala waxaan idin ka codsanayaa inaad like saartaan videogan sidoo kalena aad muxuu channelka subscribe dhahdaan insha Allah waxaan rabaa inaan video si joogto hadda ka bacdi idin soo geliyo waxaan la socon hadda waxaan ogahay videoga ugu dambeeyay bil ka hor inaan soo geliyo laakiin insha Allah taala taas oo bedelayaa waxaan rabaa si joogto inaan idin kugu faa'iideeyo insha Allah taala marka subscribe channelka dhaha ku soo dhawaada mar kale videogan aan uga hadlaynay forex trading ma xalaal ba mise waa xaraan insha Allah taala waxaan rabaa inaan ka hadlo pointiga ugu horeeya idin sheegay oo ahaa muxuu dhibaatada ka imaanaysa markii la isku daro leverage iyo adeegyada
brokerka uu ku siinayo ama adeegyada uu dilaalka ku siinayo. horta marka ugu horreeya waxaan rabaa inaan dhowr kalmadood ay idiin sheego waxay tahay maxaa waaye waxaan si ay u fahantaan waxaan ka hadlaya insha Allah tacaala iyo dhibaatada meesha ka imaanayso. marka midda ugu horreysa waa leverage. waxaa loo yaqaana leverage-kan wax kale ma aha, waa just awood muxuu dilaalka uu ku siinayo, awoodu dilaalka uu ku siinayo inaad suuqa gashid oo aad ku gashid lacag ka badan lacagtii aad account-kaaga soo dhigatay si aad ku ganacsato lacag fiican u sameyso. marka tusaale dilaalada badankood waxay ku siiyaan waxa waaye waa ama way ku 100 jibaariyaan ama 200 jibaari ku sameynayaan lacagta aad account-kaaga soo dhigato. marka haddii aad $1,000 aan soo gashto account-kayga, taas macnaheedu waxa waaye aan doorto leverage 1 ilaa 100, taas macnaheedu waxa waaye waa $100 jibaaraya $1,000 oo waxaan ku shaqaysan karaa ama aan ku ganacsan karaa $100,000. marka leverage wax kale ma waa intaas. midda kale rabo inaan idiin fasiro waxa waaye waxa loo yaqaan spread-ka waxa waaye waa lacag ay dilaalka ka qaadayo, waana inta u dhaxeyso markii aad aragtid buy-ga iyo sell-ka. marka lacag tusaale euro dollar markii aragtid markii ama waxa jiro buy meel laga iibsanayo iyo meel laga iibinayo. meeshan badana meesha laga iibsanayo qiimaha laga iibinayo iyo qiimaha qiimaha buy-ga ama qiimaha aad ka iibsanaysid euro dollar iyo qiimaha sell-ka ama qiimaha aad ku iibinaysid euro dollar markasta waxa u dhaxeeyo number yar, pips baa u dhaxeeyo. marka numberkana waxa waaye inta laga qaadayo. tusaale ganacsi haddaad galaysa ganacsigaas oo pipkiiba uu yahay $10 pipku yahay, spreadkana uu yahay 2 ama 2 pips, taas macnaheedu waxa waaye dilaalkaaga wuxuu ka qaadayaa $20. marka spread waa taas waaye. waxaa kaloo jira wax loo yaqaan commission waa percentage ama boqolkiiba in uu dilaalkaaga ka qaadayo markii aad ganacsi galaysid iyo markii aad ganacsi ka bixaysid. marka saddexdan labadan wax ugu dambeey spread-ka iyo commission-ka waa lacagta dilaalkaaga ka qaadayo, leverage-kana waa awoodda uu dilaalkaaga ku siinayo. marka point-ka ugu horeeyo oo dhibaatada meesha ugu weyn ka imaanayso waxa waaye videoga aan aniga isticmaalana hadda idiin sheeg reference ahaan video isticmaalayo. midka ugu horeeya waa idiin soo gelinaya waa Sheikh Calgary ku nool oo Sheikh Hachani la dhaho oo Sheikh Algeriana Islamic finance bartay. asaga laftirkiisa culumo badan ayuu isticmaalay ay kamid yihiin Taqi Usmani iyo culumo kale oo ayakana Islamic finance ku takhasusay. marka culumadan waa culumo yaqaano waxay ka hadlayaan, ma aha culumo iska hadlay. marka sheekhan Hachani dhibaatada ugu weyn ugu horeysa meesha ka imaanaysa wuxuu dhahay waxa waaye waa markii la isku daro loan ama leverage ama awoodan oo dilaalka ku siinayo oo kind of wuxuu dhahay asaga waxa waaye waa loan, waa deyn uu ku siinayo dilaalka. marka wuxuu dhahay markii deyn lagu siiyo, hadday deyntan ay soo u keenayso qofkan deynta ku siinayo, hadday faa'iido u keenayso waa riba, waa kind of riba. marka dhibaatada ugu weyn meeshaan ka imaanaysa wuxuu dhahay leverage-kan waxa lagu siinayaa inaad ku ganacsatid, laakiin marka ganacsanaysid lacag baa laga qaadayaa. laakiin markii aad dhageystay culumada dhinaca kale oo dhahay waa xalaal, ayakana waxay dhaheen tan dhib ma laha because sababta waxa waaye markii ayaka loan baa lagu siinaya ama awood baa lagu siinaya, laakiin awoodda haddii lagu siinayo ma jiro company kale u tagi kartid ama dilaal kale u tagi kartid oo ka lacag yar dilaalkaaga. marka ayaka culumadan kale midka ugu horeeya isticmaalaya inuu asaga yahay waa videoga labada soo gelinayo waa Sheikh cabdi xirsi waa Sheikh Soomaali. asagana wuxuu isticmaalayaa reference ahaan culumo kale oo ayagana ku takhasuseen Islamic finance, especially asaga wuxuu isticmaalayaa Sheikh Dr. Maxamed Ali Alqari oo isticmaalaya book uu ku qoray masaladan oo dhan. marka asagana caalimkan ama doctor-kan asagana Islamic finance ayuu ku takhasusay. marka cabdi xirsi wuxuu dhahay markuu akhrinayo waraaqadan uu qoray ama buugan uu qoray Dr. Maxamed Ali Alqari wuxuu dhahay markii awood lagu siinayo ama lagu siinayo loan-kan ma jirto inta loan-ka qaadatid ma jirto meel kale oo tagi kartid oo ka lacag yar.
marka tusaalaha uu isticmaalo waxa waaye wuxuu dhahay meel baa imaatay waa lagaa kireenaya qof ayaa meel kaa kireenayo markuu meel qofkan kaa kireenayo tusaale waa meel dukaana lacagna wuu ku siiyey wuu ku deemiyey si aad dukaankaagana maxaa alaab u keensatid marka wuxuu dhahay lacagtan markii lagu deemiyo meesha lagaa kireenayo caadi ahaan haddii tahay $200 iyo meelo areadan oo dhan $200 haddii lagu kiranayo ee aadan $100 ku heleen waa caadi wax dhib ma lahan laakiin haddii meel $100 ku helisid asaga qofkaana uu deyn ku siinayo meeshii $100 uu kaaga kireen lahaan oo $200 kaaga dhiga then meeshaan waa meeshii dhibaatada ka imaanayso marka wuxuu dhahay forex trading leverage waa lagu siinayaa laakiin leverage-kan iyo commissionka spreadka ma isla socdaan haddii aniga aan $100,000 aan meesheeda gashto anoona leverage isticmaalaynin weli commissionkaas iyo spreadkaas waa laga qaadaya marka waxaa jira muxuu broker badan ama dilaalo badan oo commission kaliya ka qaadayo kuwa badan oo muxuu spread ka qaadayo kuwa badan ayagana labadaba ka qaadayo marka wuxuu dhahay dhib ma lahantan because awoodan waa lagu siinaya laakiin awoodan iyo commissionka ama spreadka laga qaadayo ma isla xiriiraan because qofkan commissionka iyo spreadka wuxuu kaga qaadaya waa adeegyadu ku siinayo waay marka taas waa pointiga ugu horeeyo anigana waa ku qancay markii aan dhageystay Sheekh Cabdi Xirsi uu ka hadlay waa video detail la si fiican uga hadlay labadan video ugu horeeya ee muxuu ahaa Sheekh Hajani sheekhan English ku hadlaya by the way waa sheekh asagana muxuu ahaa si fiican uga hadlay forex iyo si uu shaqeyso marka xalaasheeda iyo xaraanteeda wuxuu bilaabay inuu ka hadlo waxay ka bilaabanaysaa daqiiqada 27 bay ka bilaabanaysaa laakiin inta ugu horeyso dhan si fiican ayuu uga hadlay forex trading iyo si uu shaqeyso sidoo kale Sheekh Cabdi Xirsin asagana waa sheekh meeshan ama adeeg stock trading iyo waxyaalahan suuqyadan online-ka 20 sano camal ku jira marka asagana wuxuu ka hadlay wuu yaqaanaa badana markii aan fiirsaday shuyuuqda kale ee xaaraanta ka dhigaya ee Soomaalida markii aan dhageystay siday uga hadlayaan forex trading si u shaqeyso xoogaa qalada ku jiray si fiican ma isoo hadlay oo isku dhex qasayeen leverage-ka spread-ka iyo waxyaalahan isku dhex qasayeen laakiin labadan video aad iyo aad ugu qanacsanahay waa laba video iga tusinayso xalaasheeda iyo xaaraanteeda labada dhinac marka tan waa pointiga ugu horeeya insha Allah taala pointiga labaad ka hadli doonaa marka walaalayaal waxaan rabaa hadda inaan ka hadlo pointiga labaad ee forex trading lagu haysto ee laga dhigayo sababta loo sheegay inay xaraan tahay oo ah no physical delivery wax gacan la isku dhiibayo ma jirto gacan sheekh again Sheekh Hajani wuxuu isticmaalay xadiis muxuu ahaa yadin biyad hadii wax la kala bedelanayo waa in la isku dhiiba waxaan hadii isku wax tahay tusaale hadii tahay gold hadii gold la kala bedelanayo waa in ay ahaadaan isku miisaan la kala bedesho ho iyo isi camal ay tahay gacanta la isku dhiibayo laakiin tan hadii xaraan looga dhigayo forex trading sababtoo wax gacan la isku dhiibay aysan jirin waxyaalo badan ayaa xaraan noqonaya oo online-ka lagu kala gato tusaale Amazon aniga Amazon wax badan baa ka gataa aad iyo aad Amazon wax uga gataa ilaa 5 ilaa 10 sano ugu dambeysay aad iyo aad wax uga gadanay sidoo kale eBay waxyaalahan online lagu kala gato dhan xaraan noqonaysa because ma jirto wax gacan la isku dhiibay delivery baa la sameeynaya waa la soo diraya muxuu ahaa marka tan aniga laftirkayga kuma qanacsaneen in forex trading xaraan laga dhigo mid ugu horeysa fahmi kara laakiin tan ma ku qanacsaneen sidoo kale tan muxuu xadiiskan uu isticmaalay sheekha waxay concern ku tahay ama waxay la xiriirtaa markay wax isku mid yihiin la kala bedelanayo tusaale gold ama dahabka hadii la kala bedelan laakiin forex trading lacaga khalaad waa lacaga khalaad markasta laba lacagood ayaa la isla barbar dhigaya oo lagu kala bedelanaya lagu kala ganacsanaya marka again aniga waxa idin kula talinayaa inaad dhageysataan labada video mid ugu horeysay mid labaadba again Sheekh Cabdi Xirsi ayadan tan si fiican ayuu uga hadlay dhageysta ayaa dhihi laakiin aniga waxa rabaa inaan idin sheego Sheekh Cabdi Xirsi video markuu diyaarinayay wuxuu ka hadlayay ama u jawaabayay
culummada Soomaaliya xamar markii isku yimaadeen ayaan dhexdaas I think December sanadkii hore ee December 2019 ay xamar isku yimaadeen ay ka soo saarayeen fatwo ay dhahayeen forex trading waa xaraan wuxuu dhahayay culummo badan si u shaqeysa bahalka mayba fahansaneenba laakiin dhageysta ayada dhihla insha Allah taala pointiga ugu dambeeyay ee saddexaad waxa waaye selling what you do not own, wax iibinta waxa adiga aadan haysan again way isla xiriiraan midda labaad iyo midda saddexaad way isla xiriiraan yadin biyad iyo tan oo ah inaadan iibin karin waxa aad adiga haysanin marka again tan waxay kari xaraan hadii tan noqonayso ay forex trading xaraan ka dhigayso waxyaalo kale ay xaraan ka dhigaysaa waxa jiro dropshipping Shopify businessyo badan oo aan xaraan ahayn marka aniga muxuu ahaa weliba adduunyadan e-commerce si u shaqeyso waxyaalo badan jiro la kala iibinayo selling what you do not own markii adiga forex trading ka ganacsanaysidna waxaan lacagtan lagu bedelayo lacag kalena aad ku bedelanaysid shaashadaadaas ka arkaysaa waa e-commerce camal waa wax online waa e-store mar kale ani waxa ugu talagalay videogan ina idinku caawiyo si aad go'aan uga gaartaan forex trading ma xaraan ba ma xalaal ba aniga mugdi ma iga jirto xalaasheeda mugdi ma iga jirto muxuu ahaa insha Allah taala waxaana rajeynayaa ina wax si un idin caawiso si aad go'aan uga gaartaan insha Allah taala mar kale waxa jira xadiis ah waxa xalaashana way caddahay waxa xaraantana waa wax cad waa evident waxaana jiro waxyaalo mushtabaada oo wuxuu ahaa dhexdhexaada waxaan uu la taliyay sida iimaankeena saa dareemina haday waxaan caadi nala tahayna waa wax si wadan karna haday nala ahayn oo aadan iimaankaaga ku oolen oo aad culays ka dareemaysidna aad ka socotid video baa jira hadda ka videogii kan ka horeeyay YouTube soo galnaa waa uga hadlay waxaan adiga haday ku dhibeyso waxa kugu la talina inaad ka socotid laakiin alxamdulillah aniga wax shakiya kama qabo forex trading inay xalaal tahay inaysan dhib lahayn inay tahay ganacsi weyn oo laga ganacsan karo dad badan ka ganacsan dad badan ka faa'iideystaan insha Allah taala anigana waa ka sii ganacsan doonaa waa ka faa'iideysan doonaa adinkana sidoo kale idin rajeynaa insha Allah taala inaad ka faa'iideystaan ka ganacsataan hadii aad rabtaan inaad si fiican u barataan forex trading insha Allah taala nagu soo biira Kurweyn Academy ku soo biira si fiican ayaan idin bari doonaa insha Allah taala walaalayaal خير بدن ayaa idin rajeynaa hadaa videoga wax ka faa'iideen say doontaba ha u yaraato insha Allah taala like saara commentiga waxa ku soo qortaan macluumaadka maxaa jeclaan lahaydeen inaan idin la wadaago insha Allah taala comment ku soo qorta waa idin soo jawaabi doonaan sidoo kale hadii aadan weli subscribe din maxaa sugaysaa subscribe insha Allah taala waa idin faa'iideen doona waa free lacag ma ahan inaad subscribe dhahdid way caawinaysaa aniga laftarkayga marka insha Allah taala subscribe dhaha waxaan idin rajeynayaa maalin aad iyo aad u qurux badan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.